السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada janaalkayga Firdawsi isku filan waa mar kale new video please haddii ay tahay marka kuugu horeyso oo janaalka soo booqato waxaan kaa codsanayaa inaad iskaraab garayso asxaabtaada kale la sii wadaagto oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan asxaabay soo dhawaada aad iyo aad ayaa idin soo dhaweynayaa alxamdulilah ilaahay u sugnaatay mahadoo dhan isoo celiyey mar kale anoo caafimaad qabo waxaan rajeynaa idinkana inaa caafimaad qabtiin inta xanuunsan alla subxaana watacaala allah caafiyo inta dhimatana alla subxaana watacaala allah u naxariisto inta safarka allah u fududeeyo qof walba oo muraadkiisa alla subxaana watacaala allah u sahlo asxaabey mar kale waxaa idinka codsanayaa wiilka yaraa habarto inay igu duceysaan qof walba awlaad ka xanuunsan tahay ilaah u caafiyo inta awlaad haysan awlaad baariyiin alla subxaana watacaala allah ku irsaaqo intay xabsiyada uga jiraan alla subxaana watacaala allah uga soo saaro intay gaala ka qaadatay ilaahay subxaana watacaala gacantooda allah ku soo celiyo kuwii ku madax adag yihiin baariyiin alla subxaana watacaala allah uga yeelo ilaah awlaadaa noo xifdiyo meel walba ay joogaan ilaahay diintaa noo jeclaysiiyo ilaahay annakana waalid baariya ilaahay subxaana watacaala allah naga dhigo oo awlaadooda ku tarabiyeeyo diinta islaamka because ilaahay subxaana watacaala awlaada nimco ilaahayna siiye waa nimcadaasna maalinta yowma alqiyaama waa laysweydiinaa la tus'aluna yowmaidin cani naciim marka ilaahay subxaana watacaala kuwa awlaadooda uga baqo alla subxaana watacaala allah naga yeelo asxaabay soo dhawaada ayaa idin leeyahay codkayga hadduu idinku daciif yahay oo idinku gaaban yahay raalli ahaada waa subax aroor ah videoga codeynooya qaybtiisa hore waa aragteen wakaalatul balax qaybta kaleetood waaye arrimo kaloo muhiimana inaan ka hadlaan rabaa insha allahu tacaala hadduu ilaah yiraahdo maadaama tookada qaybtii hore aan si fiican u faahfaahin suuqan wuxuu ku yaalaa wakaalatul balaxa la dhahaa waa magaalada guduhu ku yaalaa wakaalatul balax haddaa ku qortid waa arkaysaa ubarka wuu ku geynayaa marka dukaamada kii hore idiin soo dhigayay lambarkiisa haddaa la xiriirtay locationka noo soo tirada wuu idiin soo dirayaa walaalaha qaar waxay dhahay ninka gaal waa maxaa waxayeysiina walaalayaal waxa aniga usoo gudbinaya inay ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iideysato gaalna yaa wax laga gadanin mala dhihin because suuqaas nimanka ka shaqeeya oo dhan most of them gaalo waaye muslimiinta aaday ugu yartahay wakaalatul balax markii runta laga hadlo gaaladooda ka wada shaqeyso marka gaaliya wax laga gadan maldi anaka waxaa ka gadanayn wixiisa nadiif oo ah dadka aada u soo dhaweynayay marka saasaa maxaa la dhahaa lambarkiisa idinkugu soo gudbinaya laakiin aniga inuu muslim yahay inuu gaal yahay waxbayga muusa gelin oo diin meesha iskugumayna imaanin inaa wax ka gadana bisa u imaanay qof aad dadka u soo dhaweynayo waxa u sharaxayo oo maxaa la dhahaa qofka wuxuu iga dhin yiraahda ka dhimaayo si wanaagsan kula dhaqmaayo ahayd marka aniga diin ahaan umaana soo gudbin ninkaasi waxaa usoo gudbinaya bisle maadaama nin la fahmi kara uu yahay soomaalida inaan la dhicin bika soomaalidana aadaa loo dhacaa qaymaha meesha jooginna waa laga siiyaa marka saan loo dhicin asina waa maqlayseen xataa carabiga xoogaa waa yara qalda intaa dhahaya maxaa la dhahaa wixii xaggayga ka socdo discount u sameey lambarkaaga u dirayaa hal qof camal hal gabar inaan ka hadlaa camal carabi ahaan ugu dhahay laakiin wuu ifahme shanfaroodla ismu fahmi waayaa la yiraahdaa marka ani adinka idinkugu daneynaya wax walba oo maxaa la dhahaa ay ka faa'iideyseen walaalaha igu xiran ay ka faa'iidayaan na soo gudbiyaa marka asxaabay soo dhawaada aad iyo aad idin soo dhaweynaya insha allah inaa fahanteen aan rajeynayaa suuqaan magaciisa wakaalatul balaxa la dhahaa qaymaha way kala duduunayeen wax walba way yaaleen daahi hadday noqoto iyo hadday go-yaal sariireed noqoto iyo hadday noqoto miiska mida la saarto iyo kuraasta mida la geliyo wax aa oolin dukaankaas ma lahan laakiin waxaan dhihi lahaa hal qof ha ku aadinina laba qof special qof luuqada yaqaana aada uga fiican because soomaalideena wax hadda noola barta oo noola dhaca waxay tahay in maxaa la dhahaa afka aan aqoon oo wixii nala dhaho aan iska dhiibayno tan kale taani shay aan arkay soomaalida inta badan waxaan ku xisaabtanaa guryaha awal special guryaha awal saasaa la kirey jira maanta saas soo maraya
war anaka doolarka aa wadatid aa ku xisaabtamaysa intaa iska daysid qof masri oo masaakiin waxba asi iskama bedelin oo wadankiisa joogo ma awooda inuu guri 50 kun 20 kun 30 kun ku kiraysto ma awooda because waxaa ka hadlayna anaka maaha haddii hadda anaka loo fiiriyo waa caadi oo lacagtii hore iyo lacagta aan laisku fiiriyo meesha ay marayso waa caadi laakiin dadka wadanka iskale uu yaryahay waxyaabaha ay qaataan so dadka wadankan degan ayagaa ugu imaanay wadankooda inaan ka hadlayna ma aho maxaa la dhahaa maanta iskoolka ilmahayga dhigtaan ee Bukhaari maanta maalinkaa bilaabayna 20 kun uu ahay maantana 36 kun aa lay dhahay ilmaha high schoolka so marka xaaraan waa waxyaabahaas oo kaleetood 36 kun in maxaa la dhahaa hal cunug laga dhiibo too much qaali yani u arkaa koleytaba tan kale oo taani shay aan rabo inaan u sheego Soomaalida igu xiran degan inta ama soo socota rabto iskoolka Bukhaari walaalayaal iskoolka Bukhaari sidiisii horetood maaha ana awlaada ii dhigato alxamdulillah ilaahay hadduu ii kasan awlaadeeda waa ka wareeji rabaa runta marka aan kaga hadlo because meel aan Soomaali lagu ixtiraamaynin aniga cunugayga ma iisii joogaayo aada Soomaalida loogu bahdilaa haddii aad maanta wax u baahatid maxaa la dhahaa dhaqsi ma ka helaysid awal iskool wuxuu ahaa wax walbo u baahato street meela oo raacayso laakiin hadda waxaa moodaa inta iskaga badanay mataqaanaa in aada ugu bahdilanahay oo nothing wax lagu waxayna wax lagu qabanayo iyo midna aysan jirin masaaridina isku dayayaan Soomaalidina iskoolka ka saaraan soo marka ninka masriga islaantas masaarida iyo odaga masaariga oo wadankiisa u dhashay iyo adiga markii runta laga hadlo koodu xigsanaha adiis ka soo qaadado Soomaali joogta ajaanib qof Soomaaliya xigsa lahayd soo marka walaalaha rabo inay iskoolka Bukhaari buuxsadaan waa buuxsan karaan qofka rabo laakiin waxaa ogaataa in Soomaalida maxaa la dhahaa maanta ay wax sharafa ay ka leedahay aysan jirin maxaa la dhahaa awlaadeena aan si fiican wax loo barayn marka lacag bis inaad iska shubtid adiga macallimiin gelisid adiga wixii aad yani ku dhibtood baa laga fiican yahay 4 sano Bukhaari dhiganay sanadkaana macallimiin igu horeysay Bukhaari macallin umuusa baahnaa jirin ilmahooda ayaga iska fikireen maasha Allah tabaarakallah laakiin haddeertaan hoos oo gale waalidiinta Soomaaliyeedna laguma ixtiraamo haddii laba cunug ay istagaalaan mataqaanaa waxa la dhageysto waa cunuga maxaa la dhahaa masriga cunuga Soomaaliga lama dhageysto waayadii hore anakana ku soo jiidanaye maxaa la dhahaa labada cunug isku si ayaa loola dhaqmay laakiin haddeertaan waxaas way isku soo dhamaatay marka hooyada rabto waa geysan kartaa oo ku banaaya ana xataa 5 boos banaynoya waa geysan kartaa maxaa la dhahaa laakiin waxaa rabaan inay idinkaga digo oo idin sheego Bukhaari inuusan sidii hore ahaynin afka bas kaliya noola cadeeyo kaarka yarka oo gaduudka lacag la'aana lagu qaadi jiro qof walba way ogtahay maanta waxay dhaheen 75 gini snapkayga maaliyada soo dhigay 75 gini lagu qaadanaa kaarka waxaa cunuga inuu kaligiis oo soo bixi karo September bilowgeedii iskoolka markii la furayay lacag la'aana lagu wada qaadanayay moogina Soomaali ku qaadanaysa laakiin masaari ku qaadanaysa ana arkay soo marka haddeertaan waxaa la dhahay 75 gini laga dhiibaya horta cunugaagina aad soo baxsatid oo aad wada tadaba iskoolka u dhowda aad ku fiican tahay tan kale tood hooyooyinka Bukhaari dhigto fiidiyogan gaarsiiya waxaan rabaa inaan idin sheego ilmihiina inaa ka warhaysaan mor inaa ilmihiina ka warhaysaan dad islaameed inaa dulmino oo laga fiican ilmihiina aad u fudud yihiin markii runta laga hadlo soo marka maanta inaad ilmaha kale tood يعني فرق دير كسو نقدان waxaan dhihi karaa anaka Soomaali ahaan anaka koos gareena because ilmeena aad u fudud yihiin markay wax la isku qabto anaka iskoolka tagnana pointiga kama hadalnay cunsuriyi wax ay magaciisa ka hadalna aniga talaadadii horaan tagay talaadadii hore markaa tagay masaari badan dacwoonay soo joogtay pointiga ka hadlayaan wax barashada ahayd iyo ilmaha akhlaaqdooda laakiin amma hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan ka hadlaynaa wax fiican maaha marka haddii aa hooyo tahay Bukhaari dhiganaysid qof si fiican luuqada u yaqaan u wado si fiican uga maxaa la dhahaa ay ula hadal ilmahaagana xaqiisa u soo waxay ilmaheenana inaan u sheegno iskuulka inay waxbarasho u aadaan aysan dagaal u aadeen
maxaa la dhahaa because ilmaha qaar waxay ku dhahaan hooyada waxay tiri iska celi cunug Soomaaliya ku taabtay cunug Masri ku taabtay iska celi hooyada soo tiri cunug yar oo subaxda soo diranaysid inaad dhahdid iska celi dadka oo aad hooy waxbarasha u aadaysaa inaad waxbarashada horta muhiimada ahaato asigana aad bartid cunugaaga intuu yaryahay inaan asiga la dulmin waxna uu dulmin wuu ku weynaanayaa hadhowti haddii gabar tahayna hadhowti gurigeeda dulmi ma qaadanaysa ninkeedana ma dulminaysa hadduu wiil yahayna sidoo kale xaaskiisa ma dulminayo inay ayada dulmisana ma ka qaadanayo marka cunugaaga inaad bartid xaq inuu leeyahay xaqiisana uu dhacsan karo marka ilaahay subxaana watacaala awlaada allaha noo xifdiyo iskoolaadka kaleo masaarida laysoo weydiina kulley masaari waa far iyo faraanti kan haddaa ka bedeshid oo kaas geysid iyo kan waa isku wada mid laakiin xoogaa ixtiraamka ayay isdhaamaan qaymaha ay yani kala duwan yihiin kuwaa jiro islowliyar aa lacagahooda aa usii kartid muhiimadana aana saaraynin lacagta keliya laakiin Bukhaari iskoolkal dhaho wuxuu muhiimada saaraa lacagtaas keliya they don't care dadka joogo ilmahaaga waxbarashadoodii iyo wuxuuda lacagtaas keliya u waxaysan lacagta adi haddaa geysid khalaas wax kale ay kaa rabaan ilaa ma cunugaaga 10 beri maqnaada hadduu raba xataa in cunugaal kuu jiro layskulama xisaabtamo marka fideogan inaa meel dheer geysaan rajeynaya insha Allah tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.